waa qaybtii shanaad sheekada Cavalieri. haddii aad nagu cusubtiin daawadayaal soo dhowaada oo inoo subscribe gareeya, waxaa sheekadan keliya laga daawan doonaa janalkan waaye arag. asxaabtii hore ula socotayna aad bay u mahadsan yihiin. waxay qaybta hore sheekada inoo maraysay safarka habo ee caafimaad ee Indiya loo qaadi doono. sheekadii oo inoo sii socotana ka bogasho wacan. hooyo ayaa iiga hor timid albaabka, waxayna i weydiisay halka aan ka imid saacadan habeennimo. si aysan murug u dareemin ayaan ku dhahay guriga Maahir ayaan ku soo daahay. markii aanu waabariisanay ayaan bannaanka fikir la soo fadhiistay, anigoo dadku i moodaan inaan isaga cadayanayo. cabbaar kadib Maahir ayaa ii yimid isagoo ka imaaday dhanka laamiga. wuxuu iigu yidhi, saaxiib, waayadan gaabis badan iyo keli ahaansho ayaan kaa dareemayaa, ee maxaa kugu soo kordhay ii sheeg. waxaan u sheegay inuu bixitaan igu soo wajahan yahay oo habo aan safarka Hindiya ku helin doono. Maahir aad buu ugu farxay oo isaga wuxuu jeclaa safarada. wuxuu igu yidhi, saaxiib, waa fursad daabi ah oo aad waayo aragnimo badan ku soo qaadan doontid oo uu fikirkan badanna ku soo iloobi doontide. waan u yaro dhoola caddeeyey mid aan qalbiga jirin. waxaan aad uga walwalsanaa ka fogaanshaha aan ka fogaanayo jacaylkayga cusub, qoyskayga iyo asxaabtaydaba. galabtii waxaa ii yimid asxaabtoo wada socoto, waxayna igugu hambaliyeeyeen safarkan aan u baxayo. waxayna iga codsadeen inaan jimcadan aadno damaashaadkii ugu dambeeyey si aan isugu wada macsalaamayno. aamusanaan gaaban kadib waan ka oggolaaday, sababtoo ah waxay ii ahayd jaanis wanaagsan oo aan kula kulmi karo jacaylkayga. waa dhextaal kooban. waxaan codsan lahaa haddii aad la kulantaan dadkan camal inaad wax ka iibsataan, waayo waxay keliya ka fikirayaan quutalyoonkooda maalintaas. lagana yaabee carruur iyo waayeel baa ku tiirsan shilimaadka yaryar ee miiskaas ka soo xarooda. caawiya masaakiinta. sheekadina saaxiibayaal ha inoo sii socoto. galabta waa galab kaloo jimco ah oo jawiyadii hore igaga duwan. waxaan dareemayaa saxansaxo jacayl iyo murugo ka fogaanshihiisa. ma aqaana si aan ugu sheegi doono jacaylka aan u qaaday iyo bixitaankan dabada iga riixaya. waxaan wada nimid baarkii aan ugu magac daray baarkii nasiibka. waxaan eegay hareeraha, maysan joogin goobta. waxaan halhaleel u aaday bartii aan fariimaha u suri jiray. waxaaba ii suran 3 fariin. waxaan niyadda iska idhi, iyaduba waa kaa ku doondoonaysee. markii aan kala furay middii koowaad, waxaa ku qornaa, maxaa kugu dhacay, kumana arag waayadan. midda labaadna waxaa ku qoran, gabadhii indhaha qurxanayd aad bay kuugu xiistay, adna ma u xiisin miyaa? waa la yaab, talow midda saddexaadna maxaa ku qoran, walaal waa iga dhab, waan kuu xiisay, waxaana jeclaan lahaa inaad ila soo xiriirto. fariinta waxaa dhanka hoose ka raacsan taleefon nambar. aad uguma aanan baraarugsanayn inay iyadu si dhaba ii jeclaatay. waxaan xaqiiqsaday inuusan jacaylkeennu hal dhinac ahayn oo labada dhinac ka socdo. waxaa aad ii soo fiirinayay mid ka mida shaqaalaha baarka ee fadhiya ama qaabilsan dhanka makiinadda shaaha. markii ay indhaheennu isku dhaceen ayuu ii gacan haatiyey. niyadda waxaan iska idhi, talow muxuu ku dhihi doonaa? wuxuu i weydiiyey inay jirto qof aan fariimo isdhaafsiisan jirnay. waxaan isku dayay inaan qariyo, haddana waxaan niyadda iska idhi, armaad wax kuu dana ka heshaa. waxaan ku dhahay, haa walaal. wuxuu ii soo bixiyey warqad, wuxuuna ii sheegay inay gabadha waayadan i raadinaysay oo xitaa ay ka codsatay inaan lambarada kiliintiga uga dhex raadiyo lambarkaad lacagta ku bixin jirtay, laakiin nasiib xumo waan u heli waayey. waxaan u degdegay inaan nambarkeeda waco. codka shirkadda siimkaarka ayaa igu leh, waannu ka xunnahay, nambarka aad wacday waa uu dansan yahay. waxaan u degdegay inaan saaxiibadayda la wadaago. Maahir ayaa ku taliyey horta inaanan degdegin oo aan warqadda akhrino si aan tixraacuun uga helno warqadda. sadarkeeda ugu dambeeya waxaa ku qoran ciwaanka ama tilmaam guri.
waxaan aadnay gurigii inoola tilmaamay oo ku yaalla Xamarweyne ceelgaabta agteeda. Markii aan tagnay gurigii ayaan gargaraacnay. Alla jacaylku ileen waali wax ma dhaamo. Waxaa inaga furay gabar yar oo bilicsan oo aad moodo in dhowaan la soo aroosay. Waxaan weydiiyey, walaal qoyskii gurigan degnaa ma joogaan? Waxay dareentay inaan dad raadinayno. Waxay inoo sheegtay inay guriga degan tahay wax ka yar 10 maalmood, aysan aqoonna u lahayn wixii horay u deganaa. Waan isaga tagnay. Waxaan u gargaraacnay cidda deriska la ahayd. Waxaan weydiinay qoyskii deganaa guriga ku dhegan halka ay u guureen. Waxaan nagula dhahay muddo 25 maalmood ku dhow ayay ka maqan yihiin, waxayna u guureen halka iyo Kenya. La soco qaybaha kale. Haddii aad channelkan waayo arag ku cusub tahay, gacmo faydan iyo qalbi furan ayaan kugu soo dhawaynaynaa. Asxaabtiina ku soo xira sheekadan oo muuqaalka inoo share gareeya.